ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ka sameeyay howlgal ay ku raadinayeen shakhsiyaadkii ka dambeeyay dil loo geystay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle sidoo kalena ahaa wasiir dowlihii arrimaha diinta iyo waqaafta maamulka Hirshabelle. Hay'adaha ammaanka ayaa baaristooda ku soo qabtay shakhsiyaad aan la shaacin tiradooda balse la geeyay qaarkood xarumaha dib baarista ah ee magaalada Jowhar si loogu baaro. Sidoo kalena waxa ay sheegeen laamaha dib baarista ciidii dambigaasi lagu helo lagu qaadi doono halka kuwa kale lagu waayana la sii deyn doono. Ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa intooda badan la dhigay wadooyinka xaafadaha magaalada Jowhar waxaana la joojiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka inkastoo howlgalka qorsheysan kadib saakay dib u furay wadooyinka magaalada Jowhar. waa dilkii labaad ee magaalada Jowhar lagu geysto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana marxuum Nuur Xaashi oo horay xildhibaan kale loogu dilay kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Abuukar Maxamuud Karaani oo u magacaabna wasiirka beeraha maamulka Hirshabelle inkastoo intaan la dilin xilkaasi loo dhaarin. wasaaradda amniga Hirshabelle ayaa amni darada ku soo kortay maamulkaasi u tiirisay in al-shabaab culeys ka saaran gobolka Shabeellada Hoose ay dadajisay in gobolka Shabeellada Dhexe ay xoog ay soo saaraan isla markaana ay ka soo baxsanaya duqeymaha dhanka cirka ah oo lagu geysanayo gobolka Shabeellada Hoose kuwaasi xoogooda isugu soo aruuray gobolka Shabeellada Dhexe. weerarkan ayaa sidoo kale waxaa sheegtay dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ayagoona sheegay inay dileen xildhibaan Nuur Xaashi oo sidoo kale ahaa wasiir dowlihii arrimaha diinta iyo waqaafta dowlad goboleedka Hirshabelle. muddo bil gudaheed ayaa xildhibaankii labaad oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa lagu dilay magaalada Jowhar. haddaba sidee looga hortagi karaa weerarada muddooyinkan dambe ku soo wajahan ama ku foorara magaalada Jowhar kaas oo lagu beegsanayo mas'uuliyiinta ugu sarreeyay dowlad goboleedka Hirshabelle hadday ahaan lahayeen saraakiisha ciidamada iyo hadday ahaan lahayeen madaxda ka tirsan maamulka Hirshabelle.